aniga aabbo waxaan ahayn laba bah aniga waxaan ahaa bahgooni keliya orodka qaada rag weyn laakiin aabbe wuxuu lahaa xaas kale asalaamu calaykum ikhyaaray ku soo dhawaada ha noolaato aniguna waa yaanla xuseen cabdi waxaan ku wareysanayaa halkan oo ah magaalada Nairobi wiilka uu dhalay Allah u naxariistay Professor Maxamed Cabdi Maxamed Gandi waa sharmaarke Maxamed Cabdi Gandi sharmaarke waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka hore Professor Gandi Allah u naxariistay dad badan baa dareynaya inay ogaadaan taariikhdiisii halka uu ku koray soo ku barbaaray iyo qoyska uu ka yimid ugu horeyn maxaad ku tilmaami lahayd aabaha noloshiisii halka uu ku dhashay iyo taariikhdiisii oo kooban السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيانا هرت هذا أمها صنتهاي مرة لبعض سيدا وناكسن يقوم مرتقاد برنامجك أنا اسكت أنا سوكو بتاريخ ده أبو يو نلاشي سي ماشي كل شيء ديان كيف كم هذا هرت أبو كل شيء كن سجال بقولي أفرتني سجالكي بشي مي وكل شيء ديان سوما هذا أبي سحور الشيء وكل شيء هوبيو كن سجال بقولي تضبي تمنكي ku barbaaray hubyo deegaanka galmudug halkaas uu quraan ku bartay waxa quraanka soo baray aabiis min awowgii aabiis xaaji maxamed oo ahaan wadaad diin oo weyn oo meesha deganaa oo dadka bari jiray ee diinta aabo aabihiis wuxuu ahaan jiray ganacsade ka bacdina wuxuu aaday deegaanka dadka Israel ka sameeyay wuxuu ahaa markii boqortooyadii Kennedy ay duntay family-geena qaar kamid ah waxay u soo guureen gaalkacyo halkaas oo ahaayeen gaalkacyo dadkii abuuray kamid ahaayeen ka bacdi awowgay wuxuu noqday asagana dadka Israel ka geeyay muxuu ahaa deegaanka Soomaali galbeed ka bacdina wuxuu soo wareegay Soomaaliya marka aabbo wuxuu wax ku bartay oo uu dugsigiisa hoose dhexe iyo sare u qaatay Muqdisho wuxuu ka baxay iskuulka Allaahaydaha wuxuu ahaa ardayda ugu sareysay sanadkaas waxbarashada ka bacdi wuxuu scholarship ka helay wadanka Faransiiska oo aaday 1972 76 wuxuu qaatay shahaadadiisa ugu horeysay jaamacadda masterkiisa wuxuu qaatay 79 I think 82 PhD-diisa koobaad 90kii wuxuu qaatay PhD-diisa labaad saas noloshiisa ahayd halkaas wax ku bartay Faransa wax ku bartay uu aqoontiisii shahaadooyinkiisa koobaad iyo kii labaad ku soo dhameystay waaye professorka marka reerkiisa qoyska walaalo la dhashay ma jiraan rag iyo dumar aabbo waxaa la dhashay 6 gabdhood oo ku nool Yurub iyo maxaa Mareykanka marka rag kaligiis waxa rag kaligiis asagoo ahaa marka madiyo waxa asaga madiyo ahaa waay qoyska marka maxaan ka naqaanaa si u barbaareen magaalada Muqdisho markay deganaayeen aabaha waxbarashada ku jiray maxaa laga xusuustaa noloshii reerka horta reerkan reer weyn oo reerka aabahii uu ka imaaday iyo awowgii iyo waxay reer caan oo la yaqaano oo hubyo deganaan jiray oo ku soo barbaaray deegaankaas marka aabbo waxbarashadiisii iyo horumarkiisina qayb weyn ka qaatay marka waa reer aad u badan oo caan oo la yaqaano oo mudug oo dhan laga wada garanayo marka gaar ahaan maxaad ka xusuusataa ama uu kaaga sheegay aabaha sidoo ku barbaaray waxbarashada waxa ku dhiirigeliyay inuu gaar ahaan maadooyinkan uu bartay aad u barto oo isirka Soomaalida u baaro horta aabbo waxbarashada laba qayb ay ahayd qaybtiisa hore PhD-diisa hore waxa uu ku takhasusay cilmiga geology oo petroolka iyo la xiriira laakiin aqoontiisaas markuu PhD-dii hore dhameeyay wuxuu ku ekaa oo kaliya uu aad u intersareyn jiray anthropology-ga iyo dhaqanka Soomaalida ee meesha ka imaadeen iyo sida Soomaaliya isirkeeda taas waa uu markii dambe u galay haddana shahaadada labaad oo la xiriirtay cilmigan taariikhda iyo isirka Soomaalida marka xoogeedana noloshiisa waxay ahayd marka laga soo reebo waxbarashadii macalinka markuu ahaa waxay ku koobneed oo kaliya
taariikhda Soomaalida iyo originkeeda iyo meesha ka imaatay. waay meeqa bahow lahaa marka aabe carruurtu ka tago mise aniga aabbo waxaan ahayn laba bah, aniga waxaan ahaa bah gooni keliya orodkii ataa darab orodka ahaa, laakiin aabe wuxuu lahaa xaas kale oo France ay deganaayeen, marka waxaa ila dhalatay kaleeto laba wiil iyo gabar oo bahda kale ahaa. waay oo reer Gandia Gandia waay marka iyagu waa reer Faransiiska degan France degan halkaas ku dhashay, aabana Faransiiska ku noolaan jiray, halkaas ku noolaa asaga ilaa iyo waxbarashadiisii uu jaamacaddu ka bilaabay ilaa hadda intuu ka dhimanaya. Inkastoo Soomaaliya imaan jira markasteed oo uu qayb ka ahaa, laakiin dee qof wuxuu ahaa aabba taariikhdiisa wuxuu iska ahaa dee qof laas 50 sano u dambeeyay wuxuu ahaa nin uun arrimaha Soomaaliya iyo arrimaha bulshada iyo ka shaqeynaya. Markuu hadda jaamacadda dhameeyay for example oo kaleeto oo uu waxbarashada waday 1992 ilaa iyo intii 2000 laga gaaray wuxuu u shaqeyn jiray UN-ka Soomaaliya, arrimaha Soomaaliya, UNDP-da, UNESCO oo ahaa arrimaha nabadda iyo Soomaaliya kala shaqeyn jiray. sanadkii 2000 wuxuu ahaa madaxii farsamada oo shirkii Carte oo dowladda Soomaaliya lagu soo dhisayay. sidoo kale wuxuu ahaa nin active ka ah ururada bulshada. wuxuu ka mid ahaa dadkii aasaasay ururada bulshada Soomaalida oo ilaa 2002 ilaa 2004 meelahaas. wuxuu ahaa shirkii Imbagati lagu qabanayay oo looga hadlayay arrimaha Soomaalida markii dowladda Cabdiqaasim ay dhacday. wuxuu ahaa madaxii ururada bulshada, marka 3 qaybood looga qayb galayay. qayb waxay ahayd ururada bulshada asaga guddoomiye u ahaa Abdullaahi Yuusuf groupkii uu Allaah naxariisto watay iyo dowladdii Cabdiqaasim. markaas kadib 2000 iyo markii dowladdii ay dhalatay haddana dib wuxuu ugu noqday jaamacaddiisii waxbarashadiisii macallinimadii. Abdullaahi Yuusuf markuu madaxweynaha noqday haddana 2006 markii ciidamada Itoobiya soo galeen Soomaaliya haddana uu ka soo tagay waxbarashadii iyo macallinimadii. wuxuu soo aaday wuxuu ku biiray ururkii IRS oo dhaqaaqiisii markii Itoobiya waddanka soo gashay looga saari lahaa Eritrea ku noolaayeen. waa tii IRS markii dadka aasaas ka mid ahaa maxaakiintii iyo ururada bulshada iyo qurbo joogta. then uu ka shaqeynayo uu ahaa arrimaha dibadda uga shaqeyn jiray shirarka. marka I think waxaan u maleynaa markii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ay tagtay oo Sheekh Shariif uu noqday xildhibaan, wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga. wuxuu noqday xubin baarlamaan ka mid ah. wuxuu waday markaas howlihii Soomaaliya markaas wuxuu dib bilaabay dibadhiskii ciidamada Soomaaliya si loo sameyn lahaa. wuxuu isugu yeeray dhammaan saraakiishii ciidanka markaas noolaa oo iskoolaadka ciidamada soo maray oo caanka Soomaaliya laga yaqaanay. qaar hadda dhintay asagoo kale Allaah naxariistay oo isugu aruuriyay shir uu qabtay Mareykanka. waxaa ka mid ahaa Jenaraal Caare, Jenaraal Galaal, Jenaraal Maxamed Cali Samatar, Jenaraal Xiirey. way badnaayeen iyo kuwo badan oo hadda nool oo ka mid yahay Jenaraal Bashiir Maxamed Jaamac, Indha Qarsho. يعني way badnaayeen dadka ciidamada uu bilaabay inkastoo ay suroobeeyeen abuurka asaga iska soo keenay. dadkii markaa meesha joogay kulligood waxay yihiin hadda dadka ciidamada Soomaaliya ama taliye ka soo noqday ama hogaamiye ama qayb ka ahaa ajendii markaa. sidoo kale waxa uu aabbo ahaa ninkii lahaa fikradda Jubbaland in laga xoreeyo markaas xabjirka markaasayto. wuxuu qaatay in Shariifka asaga oo dowladdii markaa jirtay markaa asaga ay u dhiibtay Sheekh Shariif. wuxuu tababaray ciidan ilaa 3500 ah. wuxuu tababar u sameeyay maamuladii markaa jiray oo gobornaradii iyo degmooyinka dadkii ka ahaa madaxda markaasayto. wuxuu tababaray shaqaalihii canshuuraha xafiisyada dowladda ka shaqeyn lahaa. wuxuu xareeyay odayaal ama xareyn laakiin wuxuu isku soo aruuriyay odayaashii dhaqanka oo deegaanka 3 gobol. uu sameeyay guddiyo ay leeyihiin muxuu ahaa madax dhaqameedka ilaa dhowr boqol oo shir waa la qabtay. waxay dhalisay in hal abuurkaas markaas sameeyay waxay dhalisay in lagu sameeyo marka hore wuxuu la baxay magaca Azania.
oo Jubbaland ahayd markaas ciidamadaas waa ciidamadii xoreeyay deegaanka Jubbaland intiisa badan kabacdina fikradaas waxay isku Azania u wareegtay markii dambe Jubbaland ana wuxuuna ahaa founding fatherkii wixii arrintan oo dhan ka dambeeyay ninkii maskaxdeeda lahaa ama keenay ama abuuray ama waxa hadda la haysto hadeer marka inta kaliya ma ku ekaday waxyaabaha badan oo Soomaaliya u ka qabto badan way badnaayeen oo la xiriira sida horumar Soomaaliya u gaari lahaa xilalka markuu ka soo qabtay dawladda Soomaaliya maxaa kamid ah waxaa kamid ah wuxuu soo noqday wasiirkii gaashaandhigga dawladda madaxweyne Sheekh Shariif oo kale soo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka يعني xilal badan uu soo qabtay hadda markii hadda intuu soo dhiman ka hor wuxuu ahaa musharax madaxweyne wuxuu ahaa wuxuu madax u ahaa xisbi oo xisbiyada kamid ah oo jira xisbiga oo hadda xisbiga nabadda wuxuu kale ahaa gudoomiye ku-xigeenka musharaxiinta dhan oo hadda musharaxiinta hadda aan garanayay hadda laakiin ilaa 2009 ilaa hadda intuu dhintay wuxuu ahaa xildhibaan oo baarlamaanka gaar ahaan maxaa ku xusuustaa marka aabba Allah u naxariistay markaad koraysay iyo saameynta kugu lahaa ilaa hadda waliba waxaan ogahay hadda inaad wixii uu aabba ka tagay oo buugaag iyo taariikh ahaa ninku mar walba gacanta ku hayay oo la socday aad ahayd xaaladiisa maxaad ku xusuustaa aabba horta aabbo aniga oo yar wadanka soo tagay marka waxbarasho soo aaday laakiin markii dambe nolosheeda waxaa noqon laba qof aad isugu dhow oo aad saaxiib ah oo aad u sheekaysta oo wadaaga sirta wax walbeeto marka aabbo wuxuu ahaa nin inuu aad u Soomaali ah aad u qalbi furan aad u qalbi fiican waxyaabaha uu ka tagayna muhiim ay tahay in la hor loo wado hadda qorshaha iyo barnaamijka hadda halkaan aan u imaaday oo hadda 3 qaybood u qaybsan waxa kamid yihiin waxaas in bugaagtii uu qoray in la daabaco bugaag waxa jirta asaga uu qoray oo aan dhameystiran oo sida buug isirka oo kale buuga abtirka Soomaalida iyo bugaag kale oo dhameystiran ama dhameystir u baahan in bugaagtaas la qoro muhiimadda ugu weyn hadda ana u imaaday hadda halkaan oo kulamada ugu imaaday hay'adaha hay'adaha qaar oo asaga ula shaqeyn jiray kamid ah waxaan kaloo sameynay foundation asaga Professor Gandhi Foundation magaciisa ah oo waxyaabo qaban jiray sababtoo ah wuxuu ahaa nin aad humanitarianka ula shaqeeya Soomaaliya keenay hay'ado badan oo samafal ah waqtiga dhibaatooyinka ku jirtay sida Medical Sans Frontières oo kale Spain kuwa Swiss-ka ah marka in waxyaabii wanaagsan oo dadku sameyn jiray in la sii sameeyo hay'adda foundation-kan oo sii hore u sii wado dhinaca caafimaadka waxbarashada nabadeynta iyo waxyaabii wanaagsan oo lagu garan jiray asaga in la sii wado oo qaybta foundation-ka ay qaabilsan tahay also buwaagtiisina aan daabacno oo kuwa hadda diyaarka ana publish loo raadiyo haddii Ilaahay idmo kuwa dambeetana aan la raadsado dad aqoonteeda la oo dhameystiri kara iyo qaybta kale waxa waaye maalinka dhaweyd library-giisii aad tagnay waxaa yaala dokumentiyo aad u qiimo badan oo ah audio ama dad wax ka duubay ama cajalado ama wax aad umad faa'iido u yeelanayo si library looga dhigi lahaa oo loo digitalize gareyn lahaa oo looga dhigi lahaa wax ummadda bari meel ay ugu hagaagtay ay hesho inta library weyn laga helayo saaxiibada aabbaha marka laga yimaado ajnabiga Soomaalida saaxiibada la ahayd yaa kula soo xiriiray oo aad u danaynaya inay wixii aabbaha ku haminayay wax ka caawiyaan والله أبودين آدي أدو صاحبه بدن وأهد وله ضد بدن مركز ولي ما أنا أرج أنت ضد أنا لا هلا من برنامج أنا أصوب بندقي قف أنا كوريمد أما أنا تاير موجودين قف البو أنا ويتصي إنه إلى شقين دونه مركز لكن وقت وحول بوقت قادنا يعني تايم مركز وقت جدا سوينا دويلا لكن هذا تاير هذا آدي وبدن تاي marka waxaan anaga mas'uuliyad naga wada saaran waayo not only aniga kaliya bad Soomaaliya oo dhan in dadka dambe ay arkaan waxay dadkii ka horeeyay isirka Soomaalida ay ka qoreen aad iyo aad u mahadsan tahay Sharmaarke waan kaaga mahadcelinayaa waraysiga siisay waxaan rajaynayaa cid kastoo dareynaysa inay wax ka ogaato kaydkii aabe iyo taariikhda uu ka tagayna inay kula soo xiriiraan oo gacan ka siiyaan haddii Allah awood u golaado hawshan adag ee maanta aad adiga mas'uulka ka tahay ee ummadda Soomaaliyeed u haysid aad u mahadsan tahay aad iyo aad ku baahsanahay inta waxa ku dhan waraysigii koobnaa aan kaga hadlaynay taariikhdii koobnayd ee ku saabsanayd
allah u naxariistay professor maxamed cabdi maxamed gandi oo ku geeriyooday dalka faransiiska sanadkii tagay ee 2021 bishii abriil intaynu mar kale kulmi doonno waxaan idin leenahay nabadgalo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid